السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن إسلام صاحبيال رمضان مبارك maantana waxaan rabaa inaan isla eegno sida dhagaxaanba ku qoran oo jeedin Lafoole incident dagaalkii Lafoole ka dhacay badankeen waa maqalnay Lafoole inuu dagaal ka dhacay dagaalka ka dhacay qaabku u dhacay meeqa saraakiila meesha macnaha lagu dilay suu dagaalku u dhacay qabaa'iladee ka dambeeyay dagaalka inuu dhaca baarista Talyaaniga markuu sameeyay kadib muxuu ogaaday inaan isla eegna rabaa duulaheed dagaalkan wuxuu dhacay 25 November 1896 the same year uu dhacay dagaalkii Adwa ee Abyssinia Talyaaniga iyo Ethiopia u dhaxeeyay Lafoole waa magaalo yar oo ku taala duleedka Afgooye waa magaalo beereed caan ku ah wax soo saarka dagaal uu hogaaminayay ninka loogu magac daray Chechi oo ahaa generaal Italian ah iyo 15 sargaal oo Talyaani ah iyo sidoo kale 70 askari oo la socotay ayagoo maraya duleedka markay soo gaareen duleedka magaalada maanta loogu yaqaano Lafoole xilli gudcur la galay oo maghribkii kadib meeshoodii tendooyinkooda dhigteen waxaa qaab farsameysan ama qidad dagaal dejistay beesha wacdaan oo raggii dhahay bal caani hilib aan ku soo dhaweynay gacmo furan ku soo dhawaada markii gaalkii Chechi ahaa iyo teamkiisii ay caanacawowgii hilib cunowgii bilaabeen oo la gaaray baara 2 saac habeenimo dagaalka xooggiisa bilowday qubti qashta seefta madaxa laga mariyay baara 2 saac markuu dagaalka socday Talyaanigu hub casri ah wataan Soomaalidan hubka caadiga markaa waa ku yaraa markii baashu dhanaanaatay waxaa soo galay dagaalku soo biiray beesha Mursade meeshaas labadii ciidan oo isgarabsanaya oo seeftoodii iyo warankoodii mariidku u marsanayay la haleeleen gaaladii waxaa abaara 7 habeenimo ama 1 habeenimo ama 7 saac habeenimo saa u naqaan reer koonfurkeena dagaalkii meesha ku soo idlaaday waxaa lagu dilay dhammaan saraakiishii iyo generaalkii ay wateen oo Talyaaniga ahaa Chechi iyo saraakiishiisii 70 askarna waxaa ka badbaaday kaliya 3 qofood oo dib ugu cararay xamar 3daas qof ayaa message gaarsiiyay in ciidankii la laayay badbaado loo baahan yahay taasaa dhalisay in Talyaani inta xanaaqo kadib duqeymo xoogan ka geysta maxaa la hayay sheegeen magaalada Nimow iyo Marka taa waa habkii dagaalku u dhacay aan ka warinay odayaasha Soomaaliyeed Talyaaniguna markuu baaray uu ku cadeeyay in dagaalku ay ka dambeeyeen ama la dagaalameen labadan qolo aan hore soo sheegay wacdaanka iyo Mursadaha gacanka koowaad waxa iska lahaa dagaalka oo bilaabay waa beesha wacdaan garabna waxay ka helayeen walaalahood deegaankii dalka wadaagaan beesha galadi dhaxdhaxaad ay ka ahayd Talyaaniguna sirta meesha u dusin oo may dhihin dagaal kugu soo fudud leh qolahan garab meesha siin oo ayagu waxay rabeen inay saldanadooda tartiibkooda u ilaashadaan oo amni ku helaan haddana laba garab ay kala ahaayeen suldaankii galadi wiilashiisa laba dhinac kala ahaa qolan Talyaaniga xulafo la ahaayeen qolana Soomaalidii ay garab la ahaayeen inkastoo dagaal aysan galin ayagu marka sidaas uu dagaalku dhacay cadeyntina waa tan noo xigi doonta la socod wanaagsan markan waxaan isleeyaynaa cadeyntii iyo baaristii uu Talyaaniga sameeyay kadib wixii uu ka ogaaday mar kale waxaan ku jirnaa boogii loogu magac daray The Shaping of Somali Society oo ka hadlaya taariikh nololeedka Soomaalida 1600 ilaa 1900 inta u dhaxaysa qoraagu waa Levi Kiseleni boga waxaan rabaa inaan isla eegno page 226 hadduu Ilaahay idmo page 226 ka bilaabata meeshan ina u jeedina malaya arkartiin
da kalar noo saaro ujeedin oo malena dagaalkan ka dhacay meesha la dhaho Lafoole Talyaaniga wuxuu ka sameeyey Baaris beesha Galadi xilligaas Talyaaniga xiriir wanaagsan la lahayd iyadaa laba dhinac kala ahayd odaygii meesha maamulaya markuu dhintay kadib ilmihiisa laba dhinac kala hayeen qayb kasoo horjeeda gaalada iyo horta waxaa la taas oo taariikh dheer laakiin muhiimadda waxaan rabaa in aan fahansiiyo beesha Galadi dagaalka in Talyaani lagu qaado doono way la socotay laakiin maysan la wadaagin xulafadooda siyaasadeed ee Talyaaniga maysan dhihin dagaal hebelaan uu dhici doono khiyaana soo socoto ka feejignaada maysan dhihin banaankay ka joogeen beesha wacdaan saldanadii Galadi member ay ka ahayd hase ahaatee markan iskeeda uu dhawaaqday inay dagaal la galayso iyadoo ka madax banaan saldanadii Galadi ee dagaal la gashay Talyaaniga dagaalkaas haba qaraaraado laakiin waxay garab ka heleen walaalahood beesha Mursade guulna uu kusoo dhamaaday waana kan cadeyntii inuu dagaalka ay dadkii wada galay iyo qaabka uu dhacay Galadi's long-term allies, the Wa'adan, had apparently acted independently at Lafoole, and they had been assisted by the handful warriors from the Mursade and also Galadi allies. macnaha markan qaab madax banaan ayuu ka madax banaan Galadiga ee dagaalka Lafoole galeen waxayna caawinaad ka heleen walaalahooda ama geesiyaashii Mursade kuwaasoo sidoo kalena saaxiib la ah Galadiga marka sidaa muu ogeed reerihii la dagaalamay iyo qaabku dagaalka u dhacay mise kaliya waxaa ogeed in Talyaani iyo Soomaali isdagaaleen oo kama aadan warheynin habku dagaalku dhacay iyo inta ku dhimatay dagaalkan 85 qofood waxaa ka soo hartay 3 nin Talyaanigu xanuunkii ka soo gaaray dagaalkan wuxuu sababay inuu dalkiisana taala kaga dhiso keenana taala ka dhiso meesha maanta aan u naqaan dalajirka Dahsoon waa meel lagu maamuusayay saraakiisha kaga dhimatay Talyaaniga dagaaladii oo la galay Soomaalida haddii aad hore ula socotay waa arrin wanaagsan haddii aad ogeynna videoga noo share garee like iyo comment lana wadaag walaalaha insha Allah buugan taariikh badan ku duugan waan isla akhri doonaa topic walba muhiim ah buugan ku dhex jirana waan isla soo wadaagi doonaa insha Allah haddii la mahadsanidin